بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المولى جل شأنه في كتابه العزيز الحكيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله. طلبت هالكان وحين مسكون مدي معلم كيني ويناي معلم محمود أو عمر أبسوغي ورمهانكي تاريخ ليسا عن هالكان لقصو كوبي كرين دينتا هذا كجاري إن يا أبو لندافي أبك جاري وهو هاي خادم لكتاب الله إلهي كتاب كيس أديقه سأيوه هاي معلمكم أنا جوا سوقاري آدي آدم واقيني وهو هاي شيخ نافعة أو إلهي كتاب كيس نشريي مساكين تأكالمي مساكين تأي فقرة جعل وحاول جرى معلم نمضى إلى وهاي شيخ أو إلهي دينتي سآد يغاني أو عالم أيا أولا جرت معلم كآدم وقرناي مركا هدي مر ضدك أهل الله أيهين وحاببه في الفقر خير من يمشي على وجه الأرض المعلم أو نبوي عليه الصلاة والسلام أرضا تقول سعاتي معلمين تأغو خير بلن سببت يكون لنا وحوي كلما خلق الدين جددوه diinka dadka xambaarsan kulkay duqoobaanba ayagaa soo cusboonaysayaan oo jiil dhalinyaro ah oo haddana kitaabka ilaahay sii fidiyaan ayay soo saaraan waa uun iska tadkira mooye xus waxaa ugu filan waa kii rasuulka uu yidhi calayhi asalaatu wasalaam bani aadamku hadduu dhimayo camalkiisu waa go'a intaan saddex qolo ka ahayn saddexdaa qolo waxaa ka mid ah qof diinta islaamka qof barbaray ee markaas dadkii ay barbartay iyaguna dadka sii baraayaan ayna ku camal falayaan fakri iyo faan iyo fadiilo taas ayaa ugu filan in geedkii oo talaala weli oo qodka yahay oo miro sii dhalaayo oo farac bajiil oo ka sii baxaayo waxa weeye qofku haddii wax khayra ay bilowdo ilaa arlada wax kasii dadkiisa sii gaarsiinayaan ayagana ajarkoodu wuu soconayaa معلمكينا مركا إلهي هؤلاء حريستو ومهانتي وحو كتغي لبا فرع ولبا وقالئة وحو كتغي أولاد ودوناكسن أو كل جود معلمين يا مشايخ أو أولاد صلبة وحاكا لو كتغي أولاد أو لسانك كدلي أو نبلآن دريو إلهي كتاب كيس سبحانه وتعالى كأبا بيي أو آد فربضا أو كويه شيخنا شيخ عمر أبسوغي oo taqaanaan mucallimiintiisa ayuu ka mid ahaa marka intaasaa fadli iyo khayr uga filan in taariikh dheer laga xuso macallimka uma baahno marka awlaadiisana waxay iskaga yimideen dalka iyo dibadda kuwii dalka joogay maaragtaahay ahay kuwa ka dhala lisaanka ee qur-aanka ilaahay oo barana waa soo xarmadeen kuwii sulbiga ka dhalana way soo xarmadeen waxaa isugu yimiday galabtadan runtii oo khamiis ah axbaab fara badan oo ahlu duruq dhammaantooda qaybaha ay ka koobnaayeen ay isugu yimideen waxaan leenahay mucallimkayna allah u naxariisto xadaradatan intii ka soo qayb gashana ilaahay subxaanahu wa tacaala qof la arkaba muraadkeedii ha u sahlo mucallimkaynana allah u naxariisto ahlu janna allah ka dhigo ridaha ilaahay allah siiyo inta uu nooga tagay awlaadiisii kuwii maaragtahay oo ka dhala sulbiga iyo kuwa uu lisaanka ka dhalaba ilaahay dhammaantood kuwa naafica oo barakale allah ka dhigo intaasaan ku soo koobi lahay kilibkii yaraayo loogu talagalay in xoogaa taariikh nololeedkii mucallimka wax looga taabto mucallimka lagama sheekayn karo waxa uu diintan islaamka u soo qabtay wuxuu ahay waarithu nabi sallallahu alayhi wasallam khayr allah siiyo sidaas oo kale waxaan aad ugu mahad celinaynaa warbaahinta kala duwan ee kilibkan maaragtay qabteen oo sii gaarsiinayaan muslimiinta si ay ugu farxaan fadhudaaha muqtadih weeye dadku hadday ay diinta ilaahay ku toosaan dad fara badan ayaa sababtooda ku soo hanuunayaan in la xusaayo oo la qurxinayo haddii la arkana in fara badan ayaa khayrkaas ayaguna isku dayayaan inay ka faa'iidaystaan oo ayaguna sidaan oo kaleetooda ay u nooleeyaan arlada
marka intii soo xaadirtay xur Allah ka dhigo muallimkana ahlu janna Allah ka dhigo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh